وان إذن سلاميا وحان إذن كسلاميا سلامتا إسلامك سلامتا سوك خالصا لولك لعكتا قيمنك iyo dirhamka kana macaan badan malabka iyo sokorta taasoo ay isku salaamaan ehelka jannada taasoo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan wadaa sheeko aad u qiimo badan sheekadaas oo ku saabsan wiil iyo aabihiisa aabbaha waxa uu ahaa mid iska maskiin ah wiilkii laakiin waxa uu ahaa mid saaqid ah oo aan jeclayn in uu shaqaysto maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabbihii wuxuu uu yidhi wiilkaygiyo kaalay waxaan rabaa inaan wax kuu sheego markaasuu u yimid waxa uu yidhi haddaan dhinto beertaas godka qod kadib waxaa ku jirto dirham iyo diinaar iyo lacag kadib markaad dhinto godkaas kala soo bax lacagta kadib maalmo kadib aabbihii waa uu geeriyooday kadib wiilkii waxa uu tagay godkii beerta dhex taalay markaas ayuu qoday kadib waa uu ka waayay lacagtii markaasuu haddana sii qoday ilaa uu ka daalo markaas ayaa waxaa soo maray agtiisa nin ayaa waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhacay wiilkii ayaa ugu jawaabay wuxuu ku yidhi aabbahay ayaa wuxuu yidhi haddaan dhinto beerta godka ku taalo ayaa waxaa kugu jiro lacag iyo luul iyo dheeman markaas anigana waan qoday waan ka waayey markaasuu ku yidhi aabbahaa saas ulama jeedin ee waxa uu ka waday hadda beerta falo kadib abuuro wixii ka soo baxo iibso iyada ayaa kuu noqonayso lacagta markaas ayuu fikiray waa uu la yaabay markaas ayuu waxa uu ku hamiyey in uu beertii abuuro oo uu falo kadib beertii ayaa uu falay waa uu abuuray waana uu waraabiyey kadibna beertii waxay soo saartay khudradii ayaa waxa uu geeyey suuqa waana uu iibgeeyey kadib lacagtaas ayuu ka helay kadib maalintii xigay ayaa haddana beertii ayaa u weynaatay kadib beertii waa uu beertay kadib beertii waxay noqotay mid aad u weyn asigana waxa uu noqday mid hantiila ah sheekadan qiimaheedu waxay tahay in shaqadu ay tahay maal sheekadiina halaas ayaan ku gabagabeynaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته